maanta waa maalin weyn waa maalin qiimo badan waa maalin loo asteeyay dadka naafada adduunka dhammaan maanta oo kale waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin baraarujin wacyigelintan waxay ka soo bilaabanaysaa guriga waalidka dhalay cunuga naafada ah waalidka dhalay cunuga naafada ah in uu ka fikiro caafimaadkiisa waxbarashadiisa iyo wax walba mas'uuliyad ka saaran runtii caafimaadka aniga waxaan aaminsanahay priority-ga koowaad inuu yahay oo qofka bini'aadamka ah inaad ku cimro qaadataan waayo ilaahay naceeb uu anaga noo qabo nooma naafaynin sidoo kale dhammaan waxaa nagu wada socda imtixaan runtii badanaa dadka naafada waxaa ku socda faquuq hadday tahay dhanka waxbarashada hadday tahay dhanka caafimaadka hadday tahay dhanka guurka hadday tahay dhanka shaqada dhan walba marka taasoo kalena ma fiicno waxaa loo baahan yahay walaalihiin inaad ixtiraamtaan meel walba dhanka shaqada maanta waa ku faraxsanahay in wasaaradda caafimaadka kulankan qiimaha badan inay noo qabato waxaanan leeyahay sanad walba araggiina iska cabira haddii aad tihiin dad aragga naafo ka ah iyo haddii aad dad araggooda qaba tihiinba